daawadayaal kusoo dhawaada kanaalka Salgaar magacaygu waa Yamyam. asbuucan waxaan ka hadlaynaa barnaamijkii ama mawduucii aadka asbuucan loo hadalhayay Kim Jong Un iyo meeshii uu ku dambeeyay. asbuucan waxa baraha bulshada aad isku weydiinayay xaaladda caafimaad ee hogaamiyaha waqooyiga Kuuriya Kim Jong Un. sidoo kale warbaahinta Mareykanka iyo qaybo badan oo kamid ah warbaahinta Ruushka iyo Chinahu magaciisa waxa ay la xiriiriyaan xanuunka faraha badan ee dunyada hadda ku haya coronavirus-ka. sidoo kale warar kale ayaa waxa ay sheegeen in uu xanuunkaas ku dhacay hogaamiyihii waqooyiga Kuuriya oo u dhintay, inkastoo warkaas ay beenisay dowladda xogtiisa aad ku haysa wadankaas umuurihiisa u dhundaloosha koonfurta Kuuriya. halka warkan iyo waxyaalahan saddex maray gabi ahaanba ay ka aamustay warbaahinta wadanka waqooyiga Kuuriya. wargeyska Washington Post waxa uu qoray in Kim Jong Un uu maray qalliin dhanka wadnaha ah, laakiin waxa uu yiri qalliinkaas lama hayo natiijadiisa waxa ay ku dambeysay miyaa lagu guuleystay mise laguma guuleysan. sidoo kale waxa uu sheegay wargeysku oo warkiisa ugu daray in dowladda China ay u dirtay khubaro dhanka caafimaadka waqooyiga Kuuriya si ay ugu kurgasho arrinta hogaamiyaha waqooyiga Kuuriya Kim Jong Un. sidoo kale daawada arrintan waxaa si cajiib uga hadlay majalada Foreign Policy wargeyska Foreign Policy. waxa uuna sheegay saddex arrimood oo la maleynayo in ay arrintan ku dambeyn doonto arrinta Kim Jong Un ee lagu wareersan yahay. arrinta koowaad wuxuu yiri qodobka koowaad wuxuu yiri malaha koowaad oo loo maleyn doono in arrintan ku dambeyn doonto wuxuu yiri dib u soo noqosho. Kim Jong Un dib ayuu ugu soo noqon doonaa warbaahinta wadankiisa iyo warbaahinta caalamka iyo saaxadda siyaasadda dhamaanteed. waxa uu xaqiijin doonaa in uusan dhiman uu nool yahay. maqnaanshihiisa oo hadda maqan yahayna waxaa lagu sabayn karaa inuu weli isbitaalka ugu jiro qalliinkii uu wadnaha uu ka maray. marka ugu horeysa oo uu kasoo bogsoodo ama isbitaalka kasoo baxana waxa uu kasoo muuqan doonaa warbaahinada kala duwan tan caalamka iyo tan wadankiisaba. sidoo kale Foreign Policy saadaalinta kale oo ay samaysay oo ay tiri arrintan way ku dambeyn doontaa lagu wareersan yahay waxay tiri saadaalinta labaad maqnaanshiyo dheer waxa ay tiri aad uu sii maqnaan doonaa hogaamiyaha waqooyiga Kuuriya sida hadda loogu wareersan yahayna waa loogu wareersanaan doonaa. waxyaalaha keenaya inuu sii maqnaadana waxaa kamid ah bay tiri qodobka koowaad in qalliinkii ay tiri Washington Post waa looga sameeyay wadnaha inuusan guuleysan oo weli isbitaalka ku jiro oo halkaas uu ku sugnaanayo. ama waxaa laga yaabaa bay tiri in xanuunka coronavirus uu aad uga baqayo oo dhexgalka dadka iyo isku dhawaansho uu ka cararayo oo beertii uu aadi jiray ee uu dalxiis tagi jiray dhowr jeer hore loo waayay oo haddana ku maqan yahay soo halka uga gaashaamanaya inuu ku dhaco xanuunka coronavirus-ka. sidoo kale waxay tiri maqnaanshiyahan dheer waxa uu sababi karaa arrimo khatar ah oo laga yaabo in dhinacyo kala duwan ay hogaaminta wadanka ay loolan u galaan oo ay ka faa'iideystaan maqnaanshiyihiisa. waxa ayna tiri waa arrin khatar ah maqnaanshiyahaas dheer ee uu maqan yahay. saadaalinta saddexaad waxa ay tiri majalada Foreign Policy in arrin khatar ah waxa ayna tiri waa uu dhintay. waa saadaalin saddexaad oo ay samaysay majalada Foreign Policy waxa ay tiri hogaamiyihii waqooyiga Kuuriya waa uu dhintay. warbaahinta waqooyiga Kuuriya waa ay qarinaysaa bay tiri dhimashada, laakiin waxaa laga yaabaa waaye kadib in ay sheegto waa ayna sheegi doontaa sababaha ay hadda u qarinaysana waxa ay tiri waxaa laga yaabaa in uu markuu dhimanayay uu dardaarmay ciddii lagu bedeli lahaa, sidaa daraaddeed hawshii hogaamiyihii lagu bedeli lahaa ee talada la wareegi lahaa inay weli si hoose u socoto. markii ay hawshaas soo dhamaato oo wadanka la wareego ninkaas lagu bedelay hogaamiyihii dhintay waa sida ay saadaalisay waqooyiga majalada Foreign Policy. waqooyiga Kuuriya waxay sheegi doontaa dhimashada hogaamiyahoodii hore, sidoo kale waxay adduunka u sheegi doontaa ninkan cusub ee lagu bedelay. majalada Foreign Policy waxay leedahay haddii ay run noqoto in uu dhintay, sidoo kale haddii ay run noqoto in uu dardaarmo in cid lagu bedelo, arrintaasi waxa ay meesha saaraysaa walwalkii iyo walbahaarkii laga qabay in dowladdaas ay kala furfuranto, sidoo kale dhinacyo kala duwan oo saraakiila ay loolan u galaan hogaaminta wadankaas. sidoo kale waxa ay meesha ka saaraysaa baqdintii laga qabay in uu faraha ka baxo hubka khatarta ee ay ku hubeysan tahay waqooyiga Kuuriya ee nuclear-ka. aad iyo aad u mahadsantihiin daawadayaal kusoo dhawaada mar labaad iyo mar saddexaad. magacaygu waa Yamyam kanaalka Salgaar
haddii aad hore ugu taqaanayd like saar, haddii aad hadda ku cusub tahana fadlan like iyo subscribe saar. aad u mahadsantihiin.